wiil youtuber ah oo caan ah oo ka soo jeeda Ingiriiska oo qaatay diinta Islaamka. Waa maxay waxa gaarka ah ee kaa yaabiyay kadib markii aad booqatay wadamada Pakistan, Mexico, Turki iyo Masar? Sidee u arkaysay Islaamka ka hor intaanad islaamin? Wax cugdada miyaad u qabtay? Haa, muslimiinta waxaan ka qabay fikrad aad u xun gaar. Nasiib wanaag, 2 sano ee la soo dhaafay waxaan bartay oo aan ogaaday waxa Islaamku u dhab ahaan yahay. Sidee dareentay markii ugu horeysay aad shahaadatay? Uma malaynayo sidaan u farxay inaan weligay u farxay intaan noolaa. Sidee qoyskaagu uga falceliyeen markii aad islaamtay? Hooyada, aabaha, walaalka iyo walaasha? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda qaaliga ah ee ku xidhan boggeena Facebook ee Wardi Cali Official, soo dhawaada dhammaantiin. Maanta muuqaalkeenan wuxuu ku saabsan yahay wiil youtuber ah oo caan ah oo ka soo jeeda Ingiriiska oo qaatay diinta Islaamka. Haddaba wiilkan ayaa lala yeeshay waraysi, waxaana la weydiinayaa su'aalo xasaasi ah. Haddaba muuqaalkan waxaa idiin soo turjumay anigoo ah Maxamed Wardi Cali. Haddii aad ku cusub tahay boggeenan Facebook ee Wardi Cali Official, nagu soo biir oo follow dheh si aad uga mid noqoto asxaabta nagu xidhan oo aad ula socoto muuqaalada xiisaha badan ee aan mar walba soo geliyo boggeena. Muuqaalkana like saar, asxaabtaadana u sii share garee. Mahadsanid. Haddaba muuqaalku waa kana, aynu wada daawan. Waa kuma Jay. Waxaan ka soo jeedaa Ingiriiska, waxaan jiraa 25 sano, waxaan joogi jiray magaalo yar oo ku taala koonfurta galbeed ee England. Waxaan ahay blogger safarada adduunka ku tago, waxaan la wadaagaa kanaalkayga YouTube. Waa maxay hadafkaagu Jay? Maxaad u safar badan tahay? Waxaan rajeynayaa insha Allah in fikradaha xunxun ee muslimiinta adduunka laga qabo inay isbedelaan. Waxaan soo dhigaa kanaalkayga YouTube iyo akoonkayga Instagram wax kasta oo wanaagsan oo ku saabsan ilbaxnimada iyo qaabka wanaagsan ee cuntada loo cuno iyo habka nolosha. Haddaba dadku fikrado kala duwan ayay soo bixinayaan iyagoo leh ku noqo UK iyo America, balse fikradaha dadka Islaamka ka qabaan waa fikrado aad u xun, balse waxaan rajeynayaa inaan bedelo insha Allah. Waxaad ku sheegtay muuqaaladaada mid ka mid ah in Pakistan iyo Turki aad wadamada kale ka jeceshahay. Maxaa sababay taas? Maxaad Pakistan iyo Turki aad gaar uga dhigtay? Waxaan filayaa inaan Pakistan aad u jecelahay, balse sababtoo ah wax wanaagsan oo dalka ku saabsan maan maqal. Waxa ugu muhiimsan ee aan maqlay waxay ahaayeen argagax, dagaal iyo rabshado. Waxaan aaday halkaas, waxay burburisay dhammaan filashooyinkaygii. Qof kasta waxa uu ahaa mid naxariis badan oo aad u fiican. Cuntadeedu aad ayay ugu wanaagsan tahay adduunka oo dhan. Dadka waxaan ka dareemay jacayl dhab ah. Iyo sidoo kale Turkiga waa 2 dal oo aan jecelahay dad ahaan iyo cunto ahaan iyo dhaqan ahaanba. Haddaan kala hadlo masaajidkan jecelahay, runtii waxaan halkaa ka dareemay wax cajiib ah. Waa masaajidkii aan shahaadada ku qiray, waa masjidka Sulaymani ee Istanbul. Maasha Allah. Waxaan filayaa inay taasi tahay waxa igu xidhay 2dan dal, gaar ahaan Turkiga. Istanbul ayaa nolosheeda wax badan ka bedeshay. Halkaas ayaan ka qaatay shahaadada. Waa meeshii aan ka qaatay go'aankii ugu fiicnaa noloshayda. Halkii laga cuni lahaa galley Mareykanka ama UK. Waxaad doorbiday inaad kabaabka cunto gudaha Turkiga. Waa maxay waxa gaarka ah ee kaa yaabiyay kadib markii aad booqatay wadamada Pakistan, Mexico, Turki iyo Masar? Waxaad ku bilowdaa Mexico. Si fiican. Mexico gabi ahaanba way ka duwan tahay marka loo eego wadamada kale. Waxaan booqday meelaha muslimiintu aad uguma muuqato warbaahinta, xataa ku arkamaysid wadooyinka. Waxaan awooday inaan booqdo hal masjid markii aan joogay Mexico. Markaa waxay ahayd wax la yaab leh. Muslimiin badan arki maysid. Dhanka kale, Masar iyo Pakistan iyo Turkiga iyo Imaaraadka Carabta, meel walba waxaad ku arkaysaa muslimiin badan. Waxaan halkaa ku yeeshay qaar ka mid ah asxaabtayda kuwa ugu fiican. Sidee ku maqashay Islaam markii ugu horeysay? Waxaynu dib u noqonaynaa 20 sano ka hor markii dib u laabano sheekadii 9-11. Markii ugu horeysay aan maqlo wax ku saabsan Islaam waxa uu ahaa wax negative ah. Haddii aan wax badan ka hadlo oo positive ah, waxaan bartay Islaam malaha 3 sano ka hor. Laga soo bilaabo safarkaygii iyo la kulankaygii dadka aan la kulmi jiray, markaas ayaan si wanaagsan u aqaanay Islaamka. Sidee u arkaysay Islaamka ka hor intaanad islaamin? Wax cugdada miyaad u qabtay? Haa, muslimiinta waxaan ka qabay fikrad aad u xun, gaar ahaan tan iyo markii UK ay ka dhaceen weeraro badan oo ay geysteen kooxaha xagjirka ah. Saxaafaduna waxay leedahay hab aad u wanaagsan oo lagu faafin karo fikradaha khaldan.
waxaanay saameyn karaan 2 bilyan oo qof markay tahay wax yar oo xun. Xataa haddii wadooyinka UK aan ku arki lahaa gabadh xijaaban, wadada ayaan ka bedeli lahaa. Sidaa ayay u saameysay maskaxdayda warbaahinta UK, sababtoo ah maan siin naftayda fursad aan ku barto runta ku saabsan waxa uu Islaamku yahay. Nasiib wanaag, 2 sano ee la soo dhaafay waxaan bartay oo aan ogaaday waxa Islaamku dhab ahaan yahay. Tani waa diintii nabadda. Maxaa kaa dhigay inaad xiisayso Islaamka? Asal ahaan waxay la kulansiiyeen dadka markaan safrayo. Marar iyo dhif ayaan u socdaalaa wadamada ay muslimiintu ku badan yihiin. Waxa aanan tegay Istanbul. Waxay ii ahayd nasiib. 3 sano ama 4 sano ka hor kadib waxaan go'aansaday inaan dhab ahaantii aado Ciraaq bishii Sebtembar 2019. Tani gebi ahaanba way ka baxsan tahay mala awaalkayga. Waxaan aaday Ciraaq markii ugu horeysay anigoo 22 jir ah ilaa 23 jir ah. Markaa waxaad la kulantay dad wanaagsan oo muslimiin ah. Haa. Markaa waad xiiseynaysay. Haa, waan xiiseynayay. Kadib waxaan naftayda siiyay waqti aan ku baadho oo aan ogaado Islaamka dhabta ah ee ka baxayay warbaahinta UK. Sidee dareentay markii ugu horeysay aad shahaadatay? Uma malaynayo sidaan u farxay inaan weligay u farxay intaan noolaa. Waxay ii ahayd dareenkii ugu fiicnaa adduunka. Intaan masaajidka soo gelin ee aan islaamin, waxaan ahaa cawaan, noloshayduna macno may lahayn. Ma rumaysanayn inuu Ilaahay jiro. Waxaan u malaynayay in geeridu dhammaadka tahay. Isla markii aan masaajidka soo galay waxaan ku dhawaaqay shahaadada. Waan farxay runtii oo waxaan dareemay in noloshaydu ay noqotay mid farxad leh oo mugdigii ka baxday. Waxay ii ahayd dareenkii ugu fiicnaa noloshayda. Sidee dadkii kugu xiranaa ugu falceliyeen? Ma farxad? Way ii sacabtumeen, wayna dhoola cadeynayeen. Dadkii masaajidka ku jiray ayaa daawanayay oo maqlayay sacabka. Aad bay ugu farxeen. Sidee qoyskaagu uga falceliyeen markii aad islaamtay? Hooyada, aabbaha, walaalka iyo walaasha? Ilaahay fadligiis waxaan leeyahay qoys iyo asxaab ii hiiliya. Markii hore walaashay ayaan u sheegay. Markaas Snapchat ayaan furtay. Waxaan markaas joogay Istanbul. Si toos ah ayaan walaashay fariin ugu qoray. Waxaan yidhi, anigu hadda Islaam ayaan noqday. Iyaduna jawaabta i siisay. Jawaab fiican ayay ahayd. Waxay ii muujisay farxad. Adigu maad fahmin waxay ku faraxsaneyd walaasha. Haddaba familygaagu maadaama Islaam ahayn, Islaamka si kale ayuu u fahansan yahay. Haa, si kale u fahansan yihiin. Hadda maxay la farxaysay? Sababtoo ah waxay arkaysay waxaan sameynayay maalmahan. Waxa kaloo ay arkaysay cidda aan la kulmayay. Waanay maqashay sheekooyinkayga. Waxaan u sheegay yada inay weligeed rumaysan warbaahinta, waayo wax kastoo ku jira waa been. Waxay hadda barteen inay u qaataan fiidiyowyadayda sheekooyin iyo fikrado, halkii fiidiyowyadayda run weeye ay dhihi lahaayeen warbaahintu. Asxaabtayda qaaliga, barnaamijkeeni qaybtiisii koobaad halkaas ayay nagu joogtaa. Qaybta labaad iyo ku dhaafin waa qayb xiiso leh. Asxaabtayda qaaliga, waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka sii share garaysaan oo asxaabtiina gaarsiisaan. Muuqaalkana like saara, sababtoo ah waqti badan ayaa ku soo baxay. Aad baad u mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga. Barnaamijyada noocan oo kala ah waan idin soo badinayaa insha Allah. Waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waa inoo muuqaalka xiga insha Allah.